boqor cismaan aw maxamuud adigu ma waxaad meesha u soo fadhiisatay oo waraysiga kaga aqbashay inaad madaxweynaha qaranka halkan ka weerarto anaga hargeysa joognay adigu waad ka maqnayday muuse hadduu adeerkaayo abtigaa baan hortaa kala xishoon oo si fiican waraysiga xabad baad haysaaye adigu awoodanaad ku hanjabaysa iyo ciidamadan aad haysataa iyo hubkan faraha badan aad dalka ku qabsanaysa halkay ku yaallaan halkaad ka dagaalantay muuse dal buu qabsaday xoreeyey dowladuhu u babacdhigee halkaad ka soo dagaalantay adigu ha degdegin aniga si siyaasiyiinta ay waraysanay boqor baad waraysanay your highness horta marka hore maxamed oo siciid $20 million buu ku invest gareeyay doorashadiisa markuu soo baxay wuxuu keebelka haddaanad sheeriga sin dalka ka shaqaysan weysid yaa kaaga sheekay adigu yaa ku sheegay meel ay ku cadaatay maxamed oo siciid miyaad ka haysaa afkiisa uu sheer weeyay waxaan ogahay tijaartii oo dhan nin aanu baad weydiin dahabshiil buu weydiiyey teleson buu weydiiyey barkhadaad aragtayba carra wuxuu beeyada $10 baa ka soo baxay inankayga sheer ka siiyo aniga sheerigaas waxa way wada ogtay baloodhadii baloorku soo arkaba boqor cismaan abti sugaan ku dhameeyay intaas dhigayso $100 buu siya wayna maday wallahi $500 baan u hayaa $500 baan u hayaa askarigii mushaarkiisa hadaad ka keentay lacagtaas war shalay ma fadhideen oo adeerkaa fadhiyey oo kii ka horreeyey fadhiyey oo mid walba loo kordhiyey maxaa isaga u diiday ka amaan helaysa salaadiintii ka amaan helayn cid ka amaan helaysa ma jirto maxamed saad barru ka awood badan yahay bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii la hadal horyaal barnaamijka toddobaadkan waxa uu idinka imanayaa wadanka Ethiopia gaar ahaan magaalada Addis Ababa halkaas ayaa maanta aanu barnaamijkan uu idinkaga imanayaa waxaana marti noogu ah oo aanu iminka horta kamarada horteeda fadhiya boqor cismaan aw maxamuud oo ku magac dheer buurmadow boqor cismaan muddooyinka u dambeeyay dalka uu ka maqnaa boqor cismaan marka u horeysa ku soo dhawow barnaamijka la hadal horyaal TV ee horyaal TV ka baxa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana ku dhawahay horyaal TV boqor cismaan aw maxamuud in muddo dalkii baad ka soo maqnayd waxaa lagu ogaa adigoo Turkiga iyo meelaha jooga mar Muqdisho jooga mar Turkiga jooga maanta waxaynu ku kulannay Addis Ababa ma halkanaad joogtay mise safar baad ahayd muxuu yahay socdaalka halkan ku joogtay ujeedadiisu horta dalka tala kaga maqanahay ee kagama maqni wax kale waad ogeydo gobollada bariga dhibaata ka dhacday dagaal ka dhacay muuse bixi wuxuu weeyaan iyo dawladdiisu waxay tahli kari weyday inay nabadayn ka samayso waad ogeydo baryootan iyo lacag inay bixiso oo nabad ku doonto ayay gaadhay caqabad weynna way nagu ahayd heshiisiinta iyo qaabkii aan wax wadnay ilaa markii dambe ay isdhiibtay oo faraha nooga qaaday inaanu anagu dadkii nabadayno dadkayga waayeelka nabadii markaanu ku guulaysanoo dhammaysanay weliba wax alla wixii hub ahaa ee ciidamadiisuna waxba ka qaban kari waayeen dalka lagu haystay bari oo dhan awoodda kala wareegay ciidanku ku dhex dhimanayay ceelafeen ku dhimanayay darar weyne ku dhimanayay meel walba ku dhimanayay ee faraha ka baxay awood kale markuu tahli waayay inuu lacag u keeno iyo haddii aan la leeyahay nabadda lacag ku doono odayaal diro wana luqadda quru yaqaanaa waxa weeyaan ciidan urursan oo iska celinaya madaxweynaha dalka jooga tuur luqaddu yaqaanaa boqor cismaan su'aasha ku weydiiyay waxay halkan maxaad ka qabanaysaa isug waxaan ku yiri waxaan ka qabanayaa ku sheegaya waan wadaa abti ha degdegin aniga si siyaasiyiinta ay waraysanay boqor baad waraysanay your highness horta marka hore waxa weeyaan arrintu halkaa markay dhacday qaabku dalka u hogaaminayay iyo qaabku u shaqaynayayna aanu isku afgaran weynay waxay noqotay markii meeshii aanu nabad ka dhignay ciidamadii hubkii lagu wareejiyey dadkii lagu wareejiyey beel ahaan iyo Somaliland waxgaradkeedii markaanu is aragnay khaas ahaan salaadiintii habar jeclo war ninka kan dadku ha kula arkay anigu waxaan leeyahay arkay hogaamintiisa qaabkay u socotay markuu ganacsatadii baad ka qaaday nin walba yidhi haddaanad aniga iyo inamada sheeraysiin ganacsi ma soconayo madaxtooyada waynu la doonay ay noqotay nin aan ku joogayn oo doonayo dadkii baad ka qaadayo xadgudub siyaasadeed oo fara badan uu samaynayo dimuqraadiyaddii uu iska laabay iyo doorashooyinkii anigu markaan ka hor wax la yidhi ummaddu ha bislaato ha kula aragtay iskaga baxay dagaal hor leh ayna gelini horta dalka saan kaga maqnaa aan ku joogay taas ahayd laakiinse hadda ka fursan mayso inaan gudaha galno oo dadka wax la qabno boqor cismaan aw maxamuud eedo culus baad jeedisay madaxweynihii qarankaad eedaysay
dad buu baad ka qaaday baa tidhi madaxweynuhu ma nin gaangiistar oo dariiq taagan oo dadka baad ka gurayaba waa madaxweynihii qaranka waa head of state sidee hadalladaas kaaga soo bixi karaan adigoo boqora anugu hadal aanan macnayn karayn ma idhaahdo hore madaxweynaha dib jir baan ugu sheegay waa lay weydiiyey waan macneeyey inuu dib jir yahay maxaad ku macnaysay waxaan ku macneeyey qofku marka hore aad isqabataan wuxuu koonaya maxkamadda degmada ina geeya ka gobolkaa la iska tagaa ambiil baa la isla qaataa rafcaankaa la isla tagaa supreme courtkaa la isla tagaa markuu diido geedka iyo odayaasha ina geeya leedahay markuu intaba diiday yaa dad waxayna geeyay waa dib jir weeye waa dhaqanka dib jirada anugu maalinta hore inuu dib jir yahay baan ku sifeeyey maantana waxaan kuu sheegayaa maantana sifaha uu ku sugan yahay aan kuu sheegayaa qofka saqajaankaasoo ma taqaanid waxa ka xun wax la yidhaahdo maqajaan muxuu yahay maqashaan saqajaanku markuu dhergo waxbuu ka tagaa maqajaanku waxa weeyaan wuu xaabsadaa wax walba xaabsadaa qodha ay xarada anigu wallaahi bilaahi waan ku dhaaranayaa madaxnimo muuse uma diidani inuu noqdana uma diidani waaba la doonay gef baan ku galay waxa weeyaan waxaan ka soo qaaday maxamed ow siciid $20 milyan buu ku invest gareeyay doorashadiisa markuu soo baxay wuxuu keebelka haddaanad sheeriga sin dalka ka shaqaysan weysid yaa kaaga sheekeeyey adigu waxaan yaa kuu sheegay meel ay ku cadaatay maxamed ow siciid miyaad ka haysaa afkiisa inuu sheer weydiiyey waxaan ogahay tijaartii oo dhan nin aanu baad weydiin dahabshiil buu weydiiyey teleson buu weydiiyey barkhadaad aragtayba carra wuxuu yidhi beeyada $10 baa ka soo baxay inankayga sheer ka siiyo aniga sheerigaa sii waxa wey waad ogtahay boloodhadii boloorku soo arkaba boqor cismaan abti sugaan ku dhameeyay intaasi dhigayso boloodhada wada agtay buurta kala jeexan oo walgii biixi yeelan oo cabdi dabeer yeelan haadhe ummad dhan oo tolkiisa oo maatadii aba nin walba xabad la dhaco boloorkii waad aragtaa rag dhan oo tola oo 9 qarni yaalay hargeysa kowde maxamed xasan dalab iyo musabix halkay dhul hargeysa iskaga soo gaadhaan ya waxa way beertiis maanta inuu geel ku xareysto oo yiraahdo hadii la leeyahay ana qaadanaya oo wasiirkiisii uu ka xishoon waayay xaaskiisii iyo sudoodiisii boqor cismaan maxamuud adigu waxaad meesha u soo fadhiisatay oo waraysiga kaga aqbashay inaad madaxweynaha qaranka halkan ka weerarto mise inaad danta Soomaaliland maslaxadeeda horumarkeeda wanaageeda nabadeynteeda hawlihii madax dhaqameednimo waxa inaad ka hadasho ujeedada doonaysa inaad waxaan eegan karayn ee aan dalka kaga maqnahay inaan ka dagaalamay inaan ka joogay waxa ka maqnay waxa ku tijaartii baa baad la weydiinay ninkii aan sheer bixin ganacsigiisa hadda waad soo socotaa ma haysa cadayn qoraal loo qoray baad lagu weydiiyey halkaad nala wadaag ma cadayn baan ku hayaa ganacsatada orado weydii nin aan baad la weydiin oo loodan inankayga yare waa ganacsada yare maxamed ila sheer hal la siiyo aan oran amar isdoos boqor waxaas waa afkii suuqa iyo dacaayadaha iyo barbagaandada iyo mucaaradku ay akhriin jireen adigu boqorkii ummadda tahay waxaan cadaan hayni waxaan ku keenaynaa beeruhu boobay tii cismaan dacas baa kamid ah gurigii axmed cali goodir dhulkii axmed cali goodir hargeysa beer sanad isagu qaaday baa ku jira suldaan siciid hadda hudheelkii hargeysa kilaab ee 50 sanadood la siiyey isagaan magdhow ka bixin oo taas ma baadba waa baad wey suldaan baadba ma waa robeli weeyaan wax wey waa boqor madaxweyne kuma kaco boqorka suldaankana meesha waa laga kareeyey dawlad baa ka kareysay iminkana dawlad baa kala noqotay waa xaqna way u leedahay xaq kale jira noqonayso qofka muwaadinka xaq buu leeyahay dawladdu waa sax way la noqon kartaa sifa dawladeedu waa inay kula noqotaa aanu nin doonayn inuu qaato madaxweyne qaadanayn madaxweyne ayaa anigu dalka xuquuqdiisa aan u simanna waxa weeye muwaadinkan xaq buu leeyahay hantidii ka gashay meesha loo celiyaa 50 sanadood baa dawladda siisay hanti buu geliyay investment buu geliyay lagama qaadi karo waa in loo celiyaa hantidiisii oo in la xisaabtama laakiin anaa qaadanayo samaysanaya markii halkuu ku sheegay anaa qaadanaya halkee lagu sheegay qaranka u baahan oo la noqday baa leeyahay qaran wax u baahan qaranku waa madaxweynaha way wax cid dhulka doonaysa qaranka madaxweynuhu noqday anu wax kaleera kala hadlaya hebel dhulkiisii dhulkiina xasan dalab baan kala hadlay buurti kala jeexan baan kala hadlay dhulkiina xasan dalab madaxtooyaha laga dhisay danguud baa loo qaaday madaxtooyaha laga dhisaya deyr baa lagu xidhay marka dhismaheedii baa socda mashaariicdii baa la bixiyay maxaa boqor waxa la akhriyay waa maxay hold on waxaan ku yiri magaalada Muuse bixisaga hadda ugu dal badan hadduu qaranka wax la jecel yahay dhulkan uu boobay ee 9 dawladood ka dhacay waxa ku yaala dhulku boobay halku ku yaala war dhulkii la kala iibsan jiray nimankii Sacad Muuse baloorkii 100 kun marayay $2 lama siisan karo nin walba xisday Muuse ka qaadaya nin lacag investment gali karaya dalkii gaaja loogu baqtiyay Soomaad garan marka waxaan yaa ku sheegay uu dalka muddo wad ka maqnay dibad joog baa tahay yaa waxaan ku sheegay xaqad waran keenta oo kii ooyay kii dhacay og baan ay dalka boqor baan ka ahay oday baan ka ahay xoogaal baan ka ahay siyaasadiisa la socdaa waxaan ku sheegay anigu waxaan ku leeyahay laba arrin qodan ku sheegay
maanta ninkaa madaxweyne uma diidanin somalilandna uma diidin waxay noqotay nin aan dhergaynin oo maantadaa ilaa maanta 5 sannadood dhaqaalihii dowladda iyo cashuurteedii wixii soo gelayayna qaadanaya wixii qaadhaan dowladeed soo gelayayna qaadanaya ummadii baloodhadii iyo masaakiintii iyo hantidoodiina aanay baxsan haynin saxaafadii aanay ka shaqaysan karin telefishinka maxamed ilig muxuu ku xidhnaa lagu haystay dacwad baa lagu oogay ninka maxkamadda wala maxkamad buu maray barasho sharci buu maray telefishinka sheer ka bixin bay yaa halkee laga yiri yaa cad waxana sheegaysa sheer baa la doonayaa adan meeran sheer baa laga doonayaa cadayn maxaad u haysaa nin weyn baa tahay qiyaama ku sugaya aakhira su'aal lagu weydiin doona ummadda imika ku dhageysanaysa ku qiimeynaysa maxaad cadayn u haysaa aakhira hadii la weydiinayo waxaad waraysataa ilmo axmed cali goodir ilmo cismaan dacas ilmo xasan dalab maxamed xasan dalab soomaad garan inta caa'iladood ee 3,000 ee reer laga barakiciyay buurta kala jeexan soomaad garan waxaan ku yiri meel aan hadii aan laba leeyahay aan la qaylinayn waan ku wada sheegay ganacsatada ya tiraso markii khaati looga taagtay sheer buu ka qaatay kowde cidda qura diiday baada inay bixiso waa tijaartii habar jacdo dahabshiil baa diiday barkhad baa diiday ilmo xarbi baa diiday intaba wuxuu doonayaa inuu ganacsigooda xidho intii kale waxay markuu joojiyay wax war madaxweynaha saqajaanka waxna ka siiyay bay yiraahdo in walba shirbusi xogaal baan boqor Cismaan oo Maxamuud taa marka laga yimaado shirba dhawaan ku baaqday oo tiri dawlad baan ku dhisanaa waxbaanu ayaanu kaga talinaynaa halku ku dambeeyay shirki horta Somaliland marxaladay maanta marayso shir uma baahna muuse biixina shirna kaga tegi maayo media dadka ka soo qaylinayana uu ku raaxaystay habeenka telefishinka markuu qoladii reer hebel oo baryootamayso hebel la sii daayeeyo uu ku bararaa aftaag buu ka sii qaadaa muuse biixi 10 inaan oo ciidan oo ururay ma xamili karo waa madaxweynihii koobaad ee kaarayaal isku wareejiya isagaan culba soo gaadhin col hartiba jaba halku kaleeska wareejiya madaxtooyada iyo waa teegad maalintii mudaharaadkii maxaa shacbiga lagu leeyahay baqdin bay ahayd shacbi aan waxba sidan oo rasaas kaare oo isku wareejiyay iyo madaxtooyada kaarayaal midna ma jira anaga hargeysa joognay adigu waad ka maqnayday muuse haduu adeerka ayaa abtiga baan horta kala xishoon oo si fiican u waraysi iga qaad waaya waan garanayaa inaad damqanayso laakiin xaqiiqda lagama damqado anu waxaan ku sheegayaa Somaliland intaasi soo jirtay war xaqiiqan maanta ku sheegay runa horta shirkii hadda barco ka dhacaya salaadiintuna way tagi doontaa ama cadda gudaha xiro ama Suldaan Ibrahim Sulubhan horo xiniya uu leeyahay meesha ku xukun maray wallahi haday 4 inan 4 toban baad sheegaysaa 4 inan oo yoonisa ya nimankii birta calashin jiray yoonisa haday soo galaan ya ciyaarta isaga dhiman jiray wallahi baanu isaga ku raaxaysan isaga carruurtiisa magaalada ku raaxaysan oo afxashi joogay maxaa dhacaya nimankii shareer Suudaan dukaanku markuu dhaco haday doonayaan istabdeli jiray Suldaan Ibrahim wallahi inaanu xidhnaanayn ruma ku sheegaya waxaan ku sheegayaa baryada tan iyo hadii la ilaahay madaxweynow doorasho qabo midna ku tagi maayo muuse wuxuu ku tagayaa ciidan anu waxaan ku sheegayaa waxa halka gaarsiiyay arrinka niman siyaasiyiin aan qancayn nimanka xisbiyada mucaaradka ah ugu horeeyay Faysal Ali Waraabi Cirro Xirsi ragaasaanu u fadhinay markii hore in dimuqraadiyad waxun isku bedelaan nimankaas waxay aaminsanayeen muuse in maalin wax laga dhalin karo iyo dulqaad maxaa xalka uu ku tagayaa waa maxay aad haysaado ku tagay xabad buu ku tagay حبد حاجات كتير يا الله دجال مسا حبد وحو كتير يا سيد دجال ما وحو كتير سوماليلاند خساره waxa xir bay ku gashay Somaliland Maxamed Siyaad Barre kuma sameeynin inuu ganacsi dadka shacabka boobo kuma sameeynin inuu tijaarta u xidhxidho dhaqaale isii inuu kuma sameey salaadiin inuu xidhxidho kuma sameeyn saxaafad inuu xidhxidho waxa soo dhan kuma sameeyn sharing power iyo waxyaalo guud baa laga cabanayay waxaan loo adkaysan karin muuse boqor Cismaan Siyaad Barre iyo madaxweynaha Somaliland ee doorashada ku yimi iyo nin inqilaab iyo xukun iyo awood ciidan dalka ku qabsaday isbarbar dhigine markii dambena dalkii iyo dadkiiba burburiyaha isbarbar dhigine ninkan doorasho ku yimi cod buu ku tagayay halka aan xabada ahayn baa lagaaga baahan yahay boqor baa tahay oo samatalis baa laga doonayaa ma haysaa samatalis ku sheegaya maanta anigu raggan iska yaacay iska riyoonaya siyaasadda la lumay aniga hadda waxaad ka soo qaadaa ragii oo leeyay muusaanaha niyad in waan qaan inuu noocaay yahay xadu doorata marka umada waligi saraakiisha korneylada kale inaan ciidan soo hogaamin wax xukuumo jirin
ninkaas shaqo uu qabtay waxa ahayd bambartii buu navigator ka ahaa saddexdii diyaarada dalka la keenay midna xabashida soo riday midna madaarka gubtay midna la fadhiisiyey weligii xafiis shaqo 10 qof muu xukumin ninka dhan inuu madaxweynaha u dooran taariikhdiisa dhan sariigaynu hayna okay maanta raggii nagu khasbay ya in adeerkii maxamuud xaashi baa kamid ah maxamuud madaxweyne waa la rabay wax walba war maxaad la gashay ninka kan may ana wax kula jira waana lumiyey isagay raggii la socday muusay keeneen waxa waxay kula jireen ma jirto 5 sano iyagoo qaylinaya dibadda la joogay maantana ragga la xisbiyada maanta hal furo ee shirkiyada durbaanada dumarka tumay wareerinaya muddo kordhin muuse ka diyaarinaya Somaliland ma xukum ma xamili karto one day oo muuse bi xidib soo xukumo datekiisa loo qabtay war shalay ma fadhideen oo adeerka fadhiyay oo kii ka horeeyay fadhiyay oo mid walba loo kordhiyay maxaa isaga u diiday adeerkay nin saqajaana mu ahayn oo habraa baloodhada ku haysta mu ahayn nin tijaarta baad ka qaadaya mu ahayn hadii la balay nin hal suldaan soo xidhaya Soomaad garan adiga miyaanu ku xidhin laftirkaada aniga anagu waan isqabanay inaan isqabano siyaasad isku ma qabanay danaan isku qabanay Soomaad garan maxaa muuse isku haysta adiga muuse personally shakhsiyan maxaa isku haysta muuse waxaan isku haynaa shacbigeygii ya ayaa mid ganacsada iyo mid balood dhul haysta iyo mid banaanka jooga eede waxa weeye shacbigii ba waxa weeye waa laga shaqaysan karaa muuse kursiga lagu maaysto waa laga shaqaysan karaa ma la fadhiisatay oo ma la hadashay war waxana lagaaga cabanaya oo kugu diidanahay waxa wax ka qaba ma tiri intaad meelaha ka caytamaysa banaanka soo weerarayso dibada uga soo hanjabayso dagaalada abaabulayso hay Soomaad garan ninka u dhow la fadhiisanaha markaad u timaado judha wuxuu reer buu kula xamanaya Soomaad garan wali qof binaadano ka xan badan ma arag wuxuu kala hadlaya hadii aan la baleeyahay hadii aan la baleeyahay inaan cid aqli dhaantay qofka inaad wax u sheegtaan wax ka hoosaysan waxan waa qalad tilaade weeyaan moogtay waxba uma baahnid Soomaad garan anigu waxaan kula hadlin oo kula had Soomaad garan qof wadadii lagala hadlayo oo dhan wuxuu ugu hagaagayaan ama wax ka maqlayaan boqor Cismaan oo Maxamuud boqor baa tahay nin mas'uul sharaf iyo karaamo leh baa tahay ummadda dooratay ummadda hogaamiyaasheeda kamid ah hogaamiyaasha dhaqanka ugu waaweyn kamid ah wax aan ahayn aflagaado cay dagaal xabad hal la qaato hal la dagaalamo ka kacay oo xal ah oo aad maanta hayso oo doorashooyinkan iyo khilaafyadan Somaliland ka jira wax lagaga qaban karayo ma haysa ana warba ku sheegaya horta ninka madaxweynaha ee dalka loo dhiibtay waa inuu helaa cid qabata isagu dastuurkii dalkana maaha sharciyadiina maaha dalkana ma leh waa loo doortay waxaan la jooga oday awowgay oo qololaado Jibriil Tuuraayo oo digta qori jarato ceergaaba digta in loo jeeyo Siciid Caala wuxuu oran jiray qaablaawayaal dadku la yaab oran jiray waxaan la joogay ku xirsan horta waa qaablaawayaal hatta labiska iyo qiimkooda in ka dib jirka waa ka fiican wasaaraddu doonana joogo dadkaas waa dayacay Soomaad garan nimanka la jooga niman kelmad ku biirin kara niman oran kara uu la tashan karo guddi uu saaray oo warbal arrinka ka soo taliya kowde nin waalan oo robbery maskaxdiisa dalku kuma shaqeyn karo waxaan doonayaa inaan ku sheega abti hal qodob ma ku sheegaya muusad waqtigii uu ka dhamaado wallahi baanu boqorna ku noqonayn Somaliland ku jireen mid ma ku sheegaya Somaliland way burburaysaa cid qaban karaysan ma jirto reer qabanayaan ma jiro saaxiib qabanayaan burburinay laana wax weyn ma aragnay sidoo burburinaya warnina aan dadkii ganacsigeena ka amaan helayn ummadiina ka amaan helayn saxaafadii ka amaan helayn salaadiintii ka amaan helayn cid ka amaan helaysa ma jirto maxamed saad baruka awood badan yahay waxaan ku yiri cid uu qabsoomaya aanay jirin maantada cid kasta oo baryo oo tagtay ganacsatii u dambeysay maanta aad arkaysa telefishinka qaranka laga caayayo ee u dambeysay dalka u naxaysay waxaan ku sheegayaa waxay noqonaysaa intii maxamed siyaad barre hadii lala dagaalamay boqolkiiba 99 waxaan sameeyay ninkani baa ka xun Soomaad garan maxamed siyaad barre ummadda dhan buu xasuuqay magaalooyin dhan buu baabiyay 200 oo kun oo qof dadka badan baa ayuu qudha ka jaray mataasad ku dheerinaysa waxaan ku yiri waxa weeyaan dhimasho hadda soo socotaa taas aad doonaysaa leedahay xasuuqa hadda ku socdaa wadadii haya xasuuqa maantii dhawad wixii dadkii la leynayay marash bay ahaayeen xabaalaa la geynayay wasiirada ay aaska tagi kari waayeen marash bay hadduu bilaaban wadadii ku socdaa hadduna bilaabaya wadna arki doona wiiga ka soo socda haddii aanu baarlamanku tallaabo qaadin wallahi anaa ku sheegay ya booramay ka dhici
bari bay ka dhici hargeysay ka dhici ciduu xukumi doona wallahi inaanu jir inaanu geed deeblana khudaarta beeraha dhaca cunay ku cunayn baloydhadu cunana ku seexanayn hargeysana wallahi cid ku yaa dagaalamaya waa yaa dadkan abaabulanaya ciidamadan hubaysanaya aad ogtahay ee dagaalamaya halkay joogaan maxamed siyaad barre miigaga iyo diyaarada haysta kani waxba maba haystee yaa la dagaalamay shacabaa la dagaalamay qaawan yaa la dagaalamay shacabka annagaa hogaaminayna waxaan kuu sheegayaa muddada muuse inaanu sii xukumi doonin muddadiisa uu haysto ka bacdi xal la gaari maayo intaa muuse sifa sharciya buu ku yimi sifa sharciyana uu kaga tegaya kursigana isku dhejin maayo boqorna ma noqon karo somalilandna sistamkeeda dowladnimo sidaa uma samaysna inta ka horeysa wixii qaldan in la saxo oo la hagaajiyo maxaa talo uga geysan wey wuxuu ku hajabayaa soo ciidamo maaha maya $100 buu siyaa wayna madeed wallahi 500 baanu hayaa 500 baanu hayaa askarigii mushaarkiisa xagaad ka keentay lacagtaas xagaan ka keenay ya cirka aan ka keeno 500 baanu hayaa askarigii kowdhe ciidamada tan saddexda boqor cismaan dhawaan muqdisho aad joogtay dad badan baa ilaahay boqor cismaan qandaraas buu soo qaatay Soomaaliland lagu burburinayo ma taasaa run oo hawshaas aad fulinaysa anigu ma burburinayo ummadii waa firxad waxna xawar bay u carartay waxna dabaday joogtaa waxna jeelal bay ku jirtaa Soomaad garan ummaddu inay iska shaqaysato oo iska baayac mushtarayso oo doorasho dhacdo nidaam yimaada la doonayay waa la waayay waad arkaysaa xisbiyada hadda wax la doonayo inuu xirsi xiro Faysal Ali Waraabe xiro ciro xiro dimuqraadiyadii ma jirto adeer ma boqor reer aanu dooranay waa marka adeer muxuu yahay baliish adigu in macna muxuu yahay doorashada ma ogola kowdhi xisbiyadana waa baabiinaya muddadoodina waa dhamaatay aniga tayadu ma dhamaan karto oo waqtigayga ma dhamaan kartay waa lay kordhinaya ya boqor cismaan maxamuud Soomaad garan bise arurta yareer commission-ka oo keensaday shalayta u khudbadeynaya laha saddexda xisbuun baa soo saaray saas madaxa saalaha ina tiirada ninka wanaagsan ee ina qoole ma aha inta kale madaxay ruuxaysa ilaahay guubi Soomaad garan حتى ما أرانا يعني حتى مكتب ورسكيتشيو يا ساسي لها سمع وضع ساسي مدحور رحية صاد قال مرك هذا يروح بالإيه معنى بقر كوميشن كاسي واحد قرصور دحاضة دار بالمريه كتابك عن الله صاري عدالة إن كل شقيان بكل أرتين ومضى هرتي هذا تا يجي له هذا وحي خلدان يجي نودين دون أي وقت كذا مرك لقارو أنت كوريسة إمك حال ما وهايسا بقر باطة هي أنت الدجال أوجني مدن إيو تنكل دقته يرى دقته طلع أضي ما حد هيسا أنا وربا كل شيء طلع أضي سمال لأنه رباسيسي أنا سيوجوري ولا تليمان سيوريسي إنا درجع عليه ديمقراطية سمية عدالة سمية دور الشدة قبل ما نقول ولبا وأنكو عضيني أنا كو عضيني يعني التلفزيون كان كهذا ودي جيست سمعت كرن وحنقول عيد والبموسى وديدي سلادين تاعو قامين يسرون بكل شيء يعني سلادين تاعو روميز كو عيد كو حقي يا وريها من عيد لبك حشونين سمعت كرن عيد لبك حشونين سلطان حسن سلطان عبد الله إنك كحشون وعي يا reer axmed cabdalle sarkaalkii qura ay lahayn gacantiisa ku baxay markii inuu aysan inta joognay maanta sultaankii guud budoonay inuu joogto ama xiro cidda ugu horeysa xabadda ku ruxaysa wallahi waa ku ugu xiga ninaan ooyeyn oo baloorkiisa qaadan dhulkiisa qaadan ma jiro ma madaxweynaha kaas mise xabad baad haysaa adigu awooddan aad ku hanjabaysa iyo ciidamadan aad haysataa iyo hubkan faraha badan dalka ku qabsanaysa halkay ku yaalaan anigu muuse waan ka geesanahay run baan kuu sheegayaa halkaad ka dagaalantay muuse dal buu qabsaday xoreeyay dawladu u babacdhigay halkaad ka soo dagaalantay adigu bari baa ana xoriisto joogo wala yaqaan xamilkan fadhiyay Soomaad garan muuse dagaal weligii anigu horaanta galaya markaan dagaalka galayay sa muuse kaare isku wareejin maayo Soomaad garan run baan kuu sheegayaa haddii meesha xal ma yaalo baarlamankaas un baan sugaynaa laba way gudood haddii baarlamanku ururadii siyaasaddu way socdeen maanta maxamuud xaashi xisbi ururka ka xisbigiisa shaqweynaysa uu qabsaday kuwa kalena way qabsadeen doorashada dhabihii doorashaday u jihaysteen cagta saareen adiguna waxaanaad ka sheekaynaysaa sidee xaaladdu noqonaysaa marka warba ku sheegay maxamuud xaashi aniga waan adeerkay ilaa inta uu siyaasadda ku jiray ninkii taageerayana meela khaldanna maxamuud xaashi aan tixgelinayo inaanu raacay muuse doorashadiisa ba kamid ahay maanta ruma ku sheegay maxamuud xaashi boqol jeer bilo aan baday maanta ilaa aan ban maayo waxaan taagnay war muuse maxaad la gashay xisbigaaga ma soo saaraya maxay heshiis ku tihiin isagoo aad kordhinaysaa oo rag baad ku laynaysaa maxaad aad u garantii ka haysataa waa mada waxba kama haysto الآن كان مقابلين عيال يربوا هذا بقول صوت يا ده سو مشغولية
توق بو يقانا توقي متوقع wax u dhiibay markaasaan xisbi ku wareejiyay Soomaad garan Maxamuud Xaashi waxaan ku sheegayaa haduu maanta doorashada madaxweynaha iyo la is saarayo iyo xisbiyada Maxamuud ka tartamayay yahay Maxamuud waan dooranaya anigu cid baan ku sheegay isagaan dooranaya isagaan oo leena fiya maal waxaan laakiin haday Maxamed kaayna waxaan dad durbaanka tumaya anaga odayaal ah Maxamuud Xaashi haday jeedadiisu tahay muusiha loo kordhiyo oo aan sharciyad ogolayn يا oo hadii aan la leeyahay 5 sanadood baan dalka cid la talisay iyo cid sharciyad u ixtiraamay iyo cid ka nabad gashay aanay jirin ay tahay bil hal loo kordhiyay oo Maxamuud ku shaqeynaya wadada waad arki doontaa laba wiil ka bacdi shacabku anaguna raaci doona anaga aan hogaamin doona Maxamuud meel uma wado Soomaad garan wax uu hadii muuse xisbiga boqor hadii xisbigiiba la ku wareejiyo Maxamed Kaahin lagu wareejiyo murashaxnimadii madaxweynaha la siiyo ma dhisaysaa ma taageeraysaa warban ku sheegaya abti 5 sanadood baa waxa la wixii labada reer heshiiska ku ahaayeen iyo wixii talku u leeyimi iyo wixii jamhuuriyaddu u la timin ka maalin qura in wax yeelo laga kari waayo maanta haduu aqbalba yeelaysa adigu maanta haduu madaxweynenimada ku soo daro qof kulmiye naga raacaya mana qaadan inuu nijaasoobay kaas xisbigaas wax dhintay weey ma xisbiyada mucaaradkan dhisayna dagaalkay galaan iyagaan la gelaynaa wadaday maraan iyagaan la maraynaa haddaygu doorka qaadan waayaan anaga hogaaminta qaadanayna oo dalka badbaadinayna waan run baan ku sheegay inaan halka fadhiyana iyagaan ku ixtiraamayna inay soo qoostaan imaka ma soo qoosteen dabcan way soo qoosteen wiigano dhan waxay leeyihiin you are right biili Ismaan Maxamuud dalka ma tagaysid goor ma tagaysaa dalka waxaan tagayaa maalinta baarlamaanka go'aan ama uu soo saaro ama qoosto ballan waxaan kuugu qaadayaa inaan dalka intaan galo anigoo taxtaashinayo aanu muusana awood lahayn waxna samayn karin dawladnimadii Soomaaliland iyo ciidamadeedii iyo awoodeedii iyo xukunkeedii ma waxba kama jiraan baad ka soo qaadaysaa xagaad ka maraysaa waxaan ku sheegay hadii maanta muuse waxaan ka karanaysaa sidii wax la isula wareegi jiray hal qabto Soomaha أنا بكل شيء السومالي وي بربوريسا مدحوينه دنبه السوماليلانا هذا والسومالي وضع حكومانه ما دعيو سوماليلاند تمحا بربوريا سوماليلاند way ka weyn tahay qarannimadeedu iyo awoodeedu way dhaaftay maalin in boqor meel ka soo hanjabowna way burburaysaa awoodad haysad ku burburinaysaa waa maxay adeer waxaan ku sheegayaa mid baa ku sheegayaa maalintii hal reer la isugu tagi jiray maanta maaha ardaagiisa hoosa maanta wax ka xoreeya muuse u baahan hadday dimuqraadiyaddu baxdana cirana fadhiisan maayo faysal fadhiisan maayo muusana fadhiisan maayo muuse doorasho iyo cod baan ku leeyahay oo uu ku tagayay ma taasoo sugtaan umada taa u diyaarsan 13 November muuse ma yeeli doono inuu wadada uu marayo ee uu ku adkaysanayo uu leeyahay saddex xisbi baan meesha ka saaraya labada xisbi kale ka saaraya aniguna waa lii kordhinaya wadada inuu docno uga bayro waa habeenkii xalay hawtigi in ciidiyaasha inuu muuse bil dambe si xukumo oo maalin walba nin ganacsada halka qabto oo dalka shidaalka boqor muuse muddadiisiiba ma dhamaanin weli lama gaarin 13 November ummadiina dagaal qaylo buuq ka kacay waxaas ololahaas socda maxaa loo jeedaa muddadii madaxweyne ma dhamaanin waxaan la qaylinaya waa maxay أنا وحن كل شيء هل حرنا كل شيء حنشباب والله يا جماعة لكن هذا حرنا كل شيء صدق تمكن نوفمبر حضو موسى أنتوا تيساس وسعتوا ودلك مدحوينك النقطة ودلك النبذوبه هذا وهدي على بلي هاي سدا بعض وقرطه هذا والله أنا المدحنا وشيء وضيني ما أنا وشيء سمعت كران قفكوا الرئيس ودي بينا واه وحقاق بقر عثمان محمود aad iyo aad baad u mahadsan tahay wareysiga qiimaha badan iyo waqtiga qaaliga aad nasiisay daawadayaal waxa inta inoogu dhamaaday barnaamijkeeni la hadal horyaal oo toddobaadkan martii inoogu ahaa boqor Ismaan Maxamuud boqor aad iyo aad baad mahadsan tahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in 3 jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed